بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan runtii bulshada ku dhaqool gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhammaan waxaan u sheegayaa inaysan wax dhib ah ka jirin degmada Beledweyne oo sidoo sheegay sargaalka laga mataqaanaa stationka soo galay oo dhahay mataqaanaa waxa laga soo bedelay Muqdisho. runtii anaga dawladda federaalka waxa naga la dhaxay shaqo waa dawladayna waana ciidanahay dawladda Hirshabeelle maamul goboleedka Hirshabeelle aad iyo aad u taabacsan yahay runtii wax oo warqad oo nooga timid xaqiisa ma hayna ilaa hadda anaga gobolkan ana mas'uul u ah dawladda federaalka iyo dawladda Hirshabeelle sida u jeedin saakay waxa ka dhacay magaalada Beledweyne inuu sargaalkaas oo soo kaxaystay maleesiyad beeleed iyo ciidan kii booliiska qayb kamid oo qabiil kula socdo sida ogsoontiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliisku waa ciidan Soomaaliyeed gibigood waxaana ka wada dhaxay in magaaladan amnigeeda ay sugaan waxaana waajib ku ah inay sugaan amniga wax meel kasta oo qatar ku tagaan waa isla garabsadaan waa isla garabsan doonaan ninkaas stationku wuxuu la galay maleesiyad beeleed oo amarka qaadanay meel ay u socotaan ma naqaan sidaas darteed ciidamada booliiska joogay ayaa waxa weydiistay gacan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida isku la shaqeyn jireen waa isku la shaqeeyeen nabadgelyada hadda magaaladana waa wax dhibaato kama jirto inta yareedna mataqaanaa way xasiliyeen saldhigana hadda waxa ku sugan ciidamadii booliiska ahay oo hore u joogi jiray oo mataqaanaa dawladda goboleedka Hirshabeelle la shaqeynay ayaa diyaar u ah wax kale oo dhibaato ah mataqaanaa hotel Hiiraan oo degan yahay sidaan ogsoonahay saraakiisha taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Madaale intaba saraakiisha ugu sareysa booliiska Soomaaliyeed waa la hadalnay way amreen amarku diidan uu ku joogaa halkan tilaabo sharcina waa laga qaaday haddii la yiraahdo asiga saldhigga waxa gacanta ku haay ciidamada nabadgelyada gobolka Hiiraan ka jooga qaybahooda kala duwan diyaar ay ku yihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.